maamulka degmada wadajir uu hogaaminaya gudoomiyaha degmada wadajir mudane cabdiraxmaan maxamed macalin cali ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxay degmada qeybaheeda kala duwan ka wadeen howlaha lagu horumarinaya bilicda iyo amniga degmadaasi. gudoomiyaha degmada wadajir ee gobolka Banaadir ayaa kormeeray qeybo kamid ah degmada iyo sidoo kale suuqyadeeda si uu u korgalo xaaladda amni iyo mid nololeed ee ka jirta degmada. waxaana uu gudoomiyaha ugu baaqayay shacabka uu kulamada gaarka la qaadanayay inta uu kormeer ku jiray in ay ka qayb qaataan xasiloonida iyo nadaafadda deegaankani. waxa uu sidoo kale ugu baaqay in ay bixiyaan canshuurta si loo xoojiyo mashaariicda kala duwan ee lagu horumarinayo bilic soo celinta degmada wadajir ee gobolka Banaadir. xaaladda amniga degmada wadajir waa mid heer sareyso boqolkiiba 90 waxaan dhihi karnaa amniga uu soo hagaagayaa boqolkiiba 90 waxaan dhihi karnaa amniga uu soo hagaagayaa. waxaa si wadajir ah u shaqeeyo xoogaga wadaniyiinta ciidamada booliska bulshada qeybaheeda kala duwan si wadajir ay u shaqeeyaan. alxamdulillah sidaad idinkaba la socotaan xaaladda ammaanka degmada wadajir iyo guud ahaan gobolka Banaadirba waa soo kabanaya. gudoomiyaha degmada wadajir ee gobolka Banaadir mudane cabdiraxmaan maxamed macalin cali oo kormeer kadib warbaahinta la hadlay ayaa tilmaamay in la xoojin doono dardargelinta awaamiirta kala duwan ee ka soo baxaysa duqa magaalada Muqdisho mudane injineer Yariso. ganacsiga degmada wadajir haddii ahleed suuqa weyn buulxoobay seebiyaano kaawo gudi waxaa socda horumar dhanka ganacsiga ah amniga horumar dhan walba ah ayaa socda soo kabasho muuqato ayaa socoto ilaa ay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo hoggaanka inta uu noo hayo horumar muuqda ayaa socdo insha Allah taala waxaana la gaari doonaa boqolkiiba boqol meesha aan u socono ilaa cid kastaba inta ay doonto ay ku ganacsataa 8 saac 7 saac 6 saac markasta oo timaado cid kastaba inta ay doonto ku ganacsataa mar haddii amni jiro dadku inta uu ka daalo ganacsanaya marka waad imaan kartaa waadna imaaday ganacsiga meel wanaagsan ayuu maraa insha Allah taala inay intaas ganacsatadana waxaan u jeedinaa inay horumarka ganacsi ay ka wadaan inay si laba laabaan. Nuur Saciid Taaliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.